بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ومضوا الصوماليات انت شري لما الله ونحرسته مقدشو وحي كدعي هبين هراء وحي شري قلبكي كدعي مقالة بيضاء وارهن مصيبة وارهن آدي مرجسي وارهن يعني محوها نمود الصوماليات يعني تركيدي أو ست توسع أو باللوضي بكمية هاي وحرب نمود الصوماليات إن ير أنو إفتيميو إن ير وكمية دعدوين كمال ما صورنا نقضي وحيالها عالم الصومالية وحكس عضو إن أنت وحجرت كأه وحير أنو إفتيميو ربع وهذا ما حد يبغى أنا كنود دبدقي ونبك هذا نهيستو ما حد سبب واه horta markuu ugu horeyso Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay ummadda alla ma dooriyo ilaa ayaga nafsadooda ayna is dooriyaan mooyee yani ummadda Allah subhanahu wa ta'ala nicmad siiyay ma dooriyo ilaa ayaga iska dooriyaan dalkan cadawgiisu waa batay markuu ugu horeyso waxaana lagu haystaa dalkan oo alla na siiyay ee barwaaqa sooranka ah ku yaalo geeska Afrika mandaqadan yar waa meel yani muxuu ahaa adduun weynaha oo dhan meesha caalamka ugu khayraadka badan ba Allah subhanahu wa ta'ala nagu beeray waa dal qurux badan oo qiimo badan oo dad aan lahayn Soomaaliya marka maqashaan ummadda Soomaaliyeed ha ogaata qaraxii magaalada Baydhabo ka dhacay waxaa ka dambeeyay maamulka Shariifka ee Itoobiya ba ka dambeeyay Shariif Sakiin ninka la yiraahdo iyo maamulkiisa ayaa ka dambeeyay waa arrin xaqiiqiyan ah sababtoo ah gaarigaas intaas la eg meeshii lagu soo diyaariyay qaraxiisi ama yani wax arrimaha lagu soo abaabulay waa arrin yani muxuu ahaa la isla wada ogsoon yahay oo ay caddahay in ay fududeysay dowladda Itoobiya iyo nimanka maamulka sheegto ayaa u fududeeyay in yani muxuu ahaa weerarkaas shalay galab Baydhabo ka dhacay waxaa intaas ku dhigo arrinta xamar ka dhacday beerta nabadda ka dhacday waxaa si toos ah ugu dambeeyay nimanka AMISOM sheegto xamar joogo iyo maamulka Xasan Sheekh Maxamuud iyo nimankan CID da ah ayaa si toos ah ugu dambeeyay maxaa yeelay gaari lorry ah ama gaari ma arkino muxuu ahaa intaas la eg inta maalmood rarkan ku socday baansiinka xagga laga soo gaday yaa waxaan dhacay u jeedaan oo dhan waxa loogu talagalay dadka Soomaaliyeed in la laayo qaaradda Soomaaliya in meel cidla lagu qaato waa arrin xaqiiqiyan ah waa arrin yani caalamka horay yani muxuu ahaa balantii laga qaaday Itoobiya ayaa loo oofinaya balan Itoobiya laga qaaday baa jirtay 1914 waqti hadda laga joogo 100 sano ku dhawaad ayaa ballan waxaa laga qaaday in Itoobiya waxay codsatay in dal Soomaali la yiraahdo inuusan jirin wadan Soomaali inuusan jirin ayaa Itoobiya yani muxuu ahaa qeyb Itoobiya kamid ah inay tahay Soomaaliya waqtigaas ayaa la go'aamiyay dad ba marka waxa way nimankan oo yani muxuu ahaa daba dhilifyada ah ee maamul goboleedyada sheegto iyo ninkan odayga ah oo Xasan la yiraahdo hadda loo bixiyay Xasan Waraabe Xasan Sheekh Xasan Waraabe ayaa loo bixiyay sidaad ogtihiin maalmaha niman funaaniin ba waxay soo saareen Xasan Waraabe ay soo saareen Xasan Waraabe waqtigii dhamaayo waqtigiisi waa dhamaadiyay dalkan wuxuu u baahan yahay gurmud degdeg ah dalka markii dal sidiisa waa shacab dalka jiritaankiisi wuxuu ku xiran yahay shacab ba ku xiran haddii shacabkii maalin walba la laayo
ما آمين سنتي مسديه لهد حمر أنت اللي قد لها بين دوت حمر إلا هدر تندبر للكوست إسكومكن دبا كومكن underground مقدشو على قد لي تضباطن يلحقوا في باكو لمتي قرح حمر كدع mid kan baydhabo makhaayad iyo centralku ku dhacayna 130 qof xaq uu si dhaafay sababtoo ah mixi saabsan hilib googo'ay yani dad yani shiilmay yani gacmashi mana umad wada shiidintay way wax meesha oo laami wada noqotay oo la kala saari karin how many persons ma wala dhihi kar ma wala tirin karam waxay xisaabsadeen intii fir gaaray am intii meel cidla ku dhimatay ayaa la xisaabiyay mooy dadka meesha ku baabayo ku gubtay cidna uma xisaabsan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u xisaabsan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego wadankan waxaana lagu haystaan loo baabi'inayaa nololeynayo maana maalin walba loo gumaadayo caalamku loo gumaadayo khayraadka dalkeena ku jiro wax kale lagu haysto malahan wadaniyiin minhi dalkan wuxuu u baahan yahay wadani daacad ah shalay nimankan oo tuugada ah ee yani muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed dhiigada lacag ku qaata amisom la baxay oo Djibouti ku kulmay waxyaabaha Djibouti ay kaga shireen waxa kamid ah in waqtigooda loo kordhiyo waqtiga loo kordhiyo mushaaraadkooda in loo badiyo wad maqasheen lacagtu waa ugu yartahay bay yiraahdeen contracting in loo kordhiyo dhiiga daadanaya inuu sii socdo dalkan in la burburiyo wax kale loo daleeyay malahan ciidan Soomaaliya lama doonayo in la dhiso ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed inuu dalkan ka dhismo cid doonaysa malahan ma garad inta madaxweynaha soo maray Cabdiqaasim oo ma siyaad baraka dambeeyay Cabdiqaasim ba kamida Cabdullaahi Yuusuf ba kamida waxa kamida Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ba kamida midkan hadda Xasan Waraab ba kamida dhamaantood hal ruux wadani kuma jiro nin walbo dalkiisa inuu burburiyo ayuu diyaar u yahay ma garad ummadda Soomaaliyeed meel walbo joogto waxaan u sheegayaa inay yani muxuu ahaa arintaas ay ogaato inta dhimatay Allah ha u naxariisto xisbiga dangudi daryeel shacab mar walba wuxuu ka soo horjeedaa gumaadka ummadda Soomaaliyeed lagu hayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh